waxaa arkaysaan waa digniin baryahanba looga digaya dadka inay bannaanka u baxaan hawada xumaatay darteed hawada xumaatay oo ka dhalatay dab ka kacay duurduurka gobolka Manitoba iyo Saskatchewan oo ah laba gobol oo ka tirsan dalka Canada hawada xumaatay marka waxaa laga wadaa hawada waxaa ku jira pollution ama wasakh badan ku jirta hawada hadda socota qashin badan oo yar ku jira oo particles wax yariis oo qashin ah oo isha aanan qaban karin oo haddii aad neefsatid oo ku neefsatid neeftaada intay raacaan sanbabada kaa geli kara dhiiggana raaci kara hadhowna xanuun dhalin kara waxaa la sheegay hawada qashinka ku jira hadda markii la cabiray wuxuu noqday ilaa iyo 150 taasoo ah number aad u sarreeya sidaa daraaddeeda marka baryahan oo dhan waxaa socday digninahaas looga digaya dadka inay iska ilaaliyaan bannaanka bixitaankiisana ay yareeyaan gaar ahaan dadka u nugul sida caruurta dumarka uurka leh waayeelka dadka neefta qaba iyo dadka samboorka qaba xataa waxaa looga digayaa inay bannaanka u baxaan hawada intay xun tahay marka hawadan wasaqaysan xanuunada hadda laga qaadi karo waxaa ka mid ah sida la sheegay madax xanuun qufac dhuun xanuun xabad xanuun indhaho ku biyeynaya ama indhaho ku xanuunaya laakiin intaas waa inta ugu yaroo laga qaadi karo waxaa kaloo la sheegay dhaqaatiirta sheegeen haddii waxaan ay sii jiraan xanuuno kaloo dheeraada in laga qaadi karo sida wadna xanuun iyo keliya xanuun intaba dadka marka jecel inay iska wareegaan oo baarkiyada iska aadaan waxaa loo sheegayaa sheekadii sidii hore inaanan ahayn oo ay is ilaaliyaan iska ilaali inaa intaa qof ku dhacdi raalli ahoo aadan dhihin ninkan waa 62 jir oo la yiraahdo James Richburg bishii November ee lasoo dhaafay sanadkii 2024 asagoo bas saaran magaalada Baltimore ee dalka Mareykanka waxaa ka mid ah dadkii baska la saaraa wiil dhalinyaro ah oo 30 jir ah oo la yiraahdo William Womack wiilka dhalinyarada marka meeshii uu ku degan lahaa markii la gaaray asagoo sii deganaya oo wuxuu jugsiiyey ninkan markuu jugsiiyey ninkii waa xanaaqay laakiin wiilka waa iska dhaga tiray baskina waa ka degtay asagoona raaligelin bixin wiilka marka hadalka inuu batay markuu arkay waa soo noqday ninkii uu la dooday ninkan marka wuxuu ku doodayaa oo leeyahay waa inaa iga raaligelisaa ilan juga ay siisay wiilkana wuxuu soo istaagay maya raaligelin aan bixinayo ma laha ma bixinaysid miya maya ma bixinayo bistoolo halkan kala soo bax dhac wiilka waa bedelayba dadkii way arkayeen sida wax u dhaceen dadkii booliis ugu yeeray booliis markii loogu yeeray waa cararay ninkii markuu cararay booliiska markay yimaadeen waa la soo raadiyey waxaa laga dhexelay bas kale asagoo ku dhex jira waa la soo qabtay wiilka isbitaala la geeyey waxaa la isku dayay in la daaweeyo laakiin waa laga gaari waayey waa dhintay maxkamada marka asagii lasoo istaajiyey last week isbuuci hadda lasoo dhaafay maxkamadiisa ahayd maxkamadii waxaa ku xukuntay inuu yahay gacan ku dhiigle second degree murder lagu xukumay maxkamad kale hadda lala sugayaa oo dhici doonto bisha November oo lagu fulinayo xukunkii lagu riday dadka marka waxaa ku jira dad xanaaqooda dhow yahay raalli idheh iyo kuma dhahayo dhac xabad kugu siinaya marka raalli ahow oodan dhihin dhibkaasay keeni kartaa waxaa aad u soo kordhay isticmaalka aabiyada saa la socotaan waxaa jira casriga maanta aabab tiro badan oo suuqa ku soo kordhay oo maalinba mid soo baxaayo oo hadba wax kala duwan loo adeegsanayo aabka la yiraahdo ChatGPT wuxuu ka mid yahay aababka la adeegsado kuwa ugu magac dheer oo aadka loo jecel yahay marka adeegsiga ChatGPT wuxuu leeyahay wanaagiisa iyo xumaantiisa sidoo kale aabyada kale xataa mid walba wuxuu leeyahay wanaagiisa iyo xumaantiisa marka mararka qaarkood qaladaada dhaca oo aabka uu sameeyo taasoo ay keenayso sida ChatGPT oo kale hadda qaladaada ka dhaca qaladaadkaasna waxay ku imaanaysaa maadaama uu aabkan uusan ahayn aab sanooyin fara badan soo jiray oo uu yahay aab casri ah teeda kalena aan baaritaano badan oo dhaadheer laga gaarin waxaa dhacda inuu qaladaad galo qaladaadku dhowaan galayna waxaa ka mid ah inuu nin isbitaal ka dhigay maalin dhaweed waxaa dhacday ninaa wuxuu rabay inuu cusbada iska yareeyo cusbada raashinka uu ku darsanayo keliya ma aha laakiin waxyaabaha cunnada lasoo iibsanaya xataa waxaa ku jira cusbaa ku jirta marka wuxuu rabay inuu cusbada iska yareeyo oo bedelkeeda wax kale isticmaalo ChatGPT uu soo qaatay uu weydiiyey wuxuu yidhi waxaan ku bedesho oo cusbada aan ku bedelan kara macnaha ii sheeg ChatGPT wuxuu yidhi okay waxaa ku bedelan kartaa sodium bromide marka waa maado la joojiyey sanooyin aad u badan ka hor
markii la ogaaday inay dhibaato caafimaadka u daran tahay oo dadka xanuuno jirka ah iyo xanuuno maskaxda ah labadaba ay ku keento ninkii jafuu soo yiri wuxuu isticmaalkeeda bilaabay sodium bromide inuu ku darsado oo cusbada noocaasa uu ku darsado cusbadii markuu ku darsaday uu isticmaalayay ilaa iyo 3 bilood ninka calaamado kala duwanaa lagu arkay wuxuu bilaabay in uu hallucination sameeyo oo waxyaabo aanan dadki arkaynin inuu arkaayo oo maqlaayo oo ghost iyo balaayo inuu arkaayo teeda kalena in uu paranoia qaaday oo wax walbo loo soo taago xataa dadkiisi haddee damcayna bakeri biyo ah waa ka qaadan waaye dadkii waxa uu qaaday paranoia caadi uu qaaday waa la orday isbitaalka la geeyey isbitaalkii waxaa lagu hayay ilaa iyo 3 isbuuca isbitaalkii lagu hayay midda intaas ka sii daran waxay tahay ninkan waa nin aqoon-yahana waa nin wax bartay waa nin nutrition weliba caada bartay nutritionist uu ahaa ninka saasay tahay aqoontii ilaahay siiyey kuma kalsoonaanin ChatGPT wuxuu weydiiyey cusbadii wuxuu cusbo ku bedelan lahaa ninkanna meeshaasuu ka tuuray waxay noqotay isbitaalkii ilaa iyo 3 isbuuc inuu ku jiray oo 3 isbuuc ka bacdi caafimaadkiisa u soo noqday ee ka baaba'een waalidii inay ka baaba'day wararka la yaab kale iyo kuwa ugu xiisaha badan iyo kuwa ugu yaabka badan intaba annagaa noogu imaanaysiin haddaadan weli subscribe noo ahayn subscribe-ka noogu dhufo asxaabtaada la sheergaree waan ku mahadsantihiin daawashadiinna intaan wararkan warar kale oo kasii xiisa badan idiin keeni doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo